hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan iyo musharaxa madaxweynaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo muddooyinkii u dambeeyayba safarro ku joogay wadamo ku yaala dibadda ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan oo warbaahinta ugu horeyn la hadlay ayaa ka hadlay socdaalka ay ugu maqnaayeen dibadda. dhammaantiin waa idin salaameynaa inta kala socota saxaafadda xisbiga halka inta joogteen soo dhaweysay saxaafadda dhammaantiin waa idin salaameynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waa ku mahadsantihiin dadkii saxaafadda ee yihiin xisbiga madaxda xisbigeena soo dhaweysayba waxaanu ku nimi saaka nabad qab safarka iyaga oo ahaa Dubai ama Imaaraadka ahaa waxa weeye waxaanu maanta soo gaadhnay nabad qab aanu ku nimi waxaanu nagu soo dhamaaday si guul leh hawlihi aanu soconay xisbiga iyo wixii kale nagaga soo baydhay arrin qaran aanu markaa aragnaba waxay noogu dhamaatay si wanaagsan oo guul leh haddii alla ka dhigayo hawlaha iyaga marka runtii xisbiga iyo shaqooyinkayga aanu tagnay si wanaagsan bay noogu soo dhamaadeen. musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadani oo codbaahiyeyaasha la wareegay ayaa isaguna ka hadlay doorashooyinka Somaliland ka dhici doona bisha November isagoo ugu baaqina komishanka doorashooyinka Somaliland inay cayimaan xilliga rasmiga ah ee doorashadu ka qabsoomi doonto Somaliland. doorashada marka hore goboladan laga bilaabayo kaar qaadashada oo labadii gobol ugu waaweynaa Jamhuuriyadda Somaliland Maroodi Jeex iyo Togdheer shacbiga waxaan ugu baaqaynaa inkastoo duruufo adag jiraan inay u diyaar garoobaan qaadashada kaararka abaara inagu dhacay saameyn badan bay yeesheen dad badan oo iman lahaa kaararka qaadan lahaa may imanin sidii ka cadaatay awdal iyo saaxil waxaan ugu baaqayaa muwaadin kasta inuu ku dadaalo inuu qaato kaarka si uu helo xaqiisa codaynta xukuumadda waxaan soo jeedinaynaa maadaama waqtiga hadhayba waa u yar yahay inay lacagtii doorashada dhammaystirto komishanka waxaan ugu baaqaynaa haddii aanay weli soo saarin waddanka ka maqnaaye inay si rasmi ah soo saaraan cayimaadda maalinta doorashada haddii Ilaahay ka dhigo. musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa sidoo kale ka tacsiyadeeyay dadkii ku geeriyooday shuban biyood. jecelahay inaan tacsiyadeeyo shacbigii reer Somaliland intii ku geeriyootay shuban biyoodka dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Somaliland oo kasta ka warqabtaana xisbiga wadani waxa xisbiga ugu horeeyay ee ka qayb qaata taakulada shuban biyoodka wixii kale suurtagalana waa soo wadna haddii Ilaahay ka dhigo. geesta kale waxa uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan ciro booqday qoyskii uu ka baxay Allah u naxariistay siyaasigii Maxamed Biixi Ooto oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaanu qoyska uga bariyay inuu samiriyay iimaan ka siiyo. waxaan soo booqanay qoyskii ama reerkii Mujaahid Ooto Biixi waan ka soo tacsiyadeynay geeridaas xaq ah Ilaahay ha naxariisto mujaahidka dhamaanteena samiriyeena inaga siiyo mar labaad. isagoo sidoo kalena musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadani booqday guriga xildhibaan cali xaaji oo wiilkiisa ku geeriyooday dalka Norway waxaanu Ilaahay uga bariyay inuu samiriye iimaan ka siiyo isagana jannadii firdawsa ka waraabiyo. halkan tacsiyo uga diraya xildhibaan cali xaaji maxamed oo wiilkiisa hanad ku geeriyooday dalka Norway aaba cali xaaji waxaan samiriye iimaan iyo dhammaan reer cali iyo dhammaan ehelkii iyo qarabadaba Ilaahay ha naxariisto dhammaanteena samiriye iimaan Ilaahay naga siiyo. Mukhtaar Ismaaciil Ali, Telefishinka Universal, Hargeysa.